Inaad wax badan akhridaa waxay kaa caawinaysaa inaadan ka dhicin noloshan casriga ah oo dhinac kasta oo ka mid ah uu xawaare aad u sarreeya ku socdo. Wax akhriska keliya ma aha ee waa in aynu si dhaqso ah wax u akhrino si aynu fursad ugu helno inaynu wax badan akhrino. Waa sida keliya aad isaga ilaalin karto in adigoo waxbarasho sare leh haddana aanad aqoonin ama noqoto qof warmooga ah oo aan ka aragti iyo fikir sarreynin qofka aan waxba baran. Saajid Cali Cabdaali ayaa buuggiisa Al-Qiraa'atu Al-Daqiya oo soo baxay 2006 waxa uu isku dayay in uu kaga jawaabo sababta uu qofka ugu baahan yahay inuu si dhaqso ah wax u akhriyo. 50,000 oo buug iyo 10,000 oo majalladood ayaa Mareykanka oo keliya ka soo baxa sanad kasta. Dunidana daqiiqad kasta waxaa la qoraa 300 oo maqaal cilmiyeed, maalin kastana waxaa soo baxa 7,000 oo daraasaadyo cilmi ah. Culuumta cusub iyo xogta dunida kusoo korodhay 50kii sano ee u dambeeyay waxa ay ka badan tahay xogta kusoo korodhay 5,000 ee sano ee ka horreeyay. Xaddiga aqoonta iyo xogta duniduba labanlaab ayay u kordhaysaa 5 sano ee ugu dambeysay. 30kii sano ee u dambeeyay oo keliya 90% ayay kobceen dhammaan cilmiyada kala duwan ee dunida. Buugtu waa il xogeed iyo dar aqoonta laga helo oo muhiim ah iyo qiimo badanna leh, laakiin ogow buuggu ma aha sida keliya ee xog waxtar leh lagu helo. Marar badan xogta aad ka hesho wargeys, majallad, qormo waxbarasho ama aqooneed, cilmi baaris, maqaal iyo wixii la mid ah ayaa ka faa'iido badan xogta aad ka helayso buugaag badan ama ugu yaraan waxa aad ka helayso xog kugula firdhisan buugaag badan oo akhriskoodu waqti u baahan yahay ama aanad adigu isla doonateen. Caadaysiga akhrisku waxa uu leeyahay faa'iido caafimaad oo dhinac kasta nafsadda iyo maskaxda. Waa waxa markaasi kobciya aqoonta, fahamka maskaxda, furnaanta iyo ildheernaanta qofka. Sidaa awgeed ma jirto dabeecad ka fiican in waalidka sidoo kale uu ilmihiisa inta uu yar yahay ku barbaariyo wax akhriska. Xeeldheerayaashu waxay sheegayaan in wax akhriska uu ilmuhu ka helo faa'iidooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin wax akhriska waxa uu xoojiyaa shakhsiyadda ilmaha. Akhrisku waxa uu tababar iyo jimicsi iyo dhisid u yahay maskaxda carruurta iyo dadka waaweyn, taasi oo aad uga badan faa'iidada uu ilmuhu ka helayo daawashada. Wax akhrisku waxa uu furaa maskaxda ilmaha waxaanu faham ka siiyaa waxa ka socda dunida ku xeeran. Wax akhrisku waxa uu wanaajiyaa fiirsiga iyo dhugmada ilmaha. Wax akhrisku waxa uu koriyaa khayaalka maskaxeed ee ilmaha iyo awoodda uu leeyahay in uu xaaladaha iyo arrimaha sawirto. Wax akhrisku waxa uu kobciyaa awoodda luqadeed ee ilmaha waxaanu wanaajiyaa isticmaalkiisa ereyada afka. Wax akhrisku waxa uu caawiyaa koritaanka caadifadda iyo dareenka ilmaha. Sababahaasi waxaa ka mid ah xiriirka dareen ee inta badan ilmaha iyo shakhsiyaadka qisaska uu akhrinayo dhexmara isagoo la wadaaga farxad, carada, warwarka iyo dareennada kale ee la midka. Wax akhrisku waa madadaalo fiican oo ilmuhu isku dhaafin karo daalka iyo wehel la'aanta. Wax akhrisku waxa uu dhisaa aadna u xoojiyaa awoodda waxbarasho ee ilmaha iyo gudashada waajibaadkiisa dugsiga, waxaana inta badan lagu arkaa inay ku fiicnaadaan guud ahaan maadooyinka uu baranayo. Wax akhrisku waxa uu nafis iyo raaxo ku beeraa jirka iyo maskaxda carruurta. Akhrisku waa mid ka mid ah hantida ugu weyn ee uu qofku yeelan karo. Waa furaha aqoonta, hal-abuurka iyo horumarinta fikirka. Dunida maanta oo xawaare nololeed aad u kordhay ku socoto, qofka akhriska bartay wuxuu leeyahay fursad uu ku gaaro meel ka fog midka aan akhriska daneyn. Waxaa jira macluumaad badan oo soo kordhaya maalin walba. Qofka aan akhriska tabciyanin si dhaqso ah ayuu uga haraa tartanka nolosha aqoonta iyo casriga. Haddaba akhriska wuxuu kor u qaadaa fikirka iyo fahamka. Marka aad wax akhrido waxaad tababaraysaa maskaxda si ay u shaqayso, u fikirto si nidaamsan. Akhrisku wuxuu dhisaa awoodda qofka ee inuu fahmo arrimaha adag, inuu ka fiirsado xalal badan, inuu yeesho aragti ballaaran.
tani waa waxa ka dhiga qofka akhriya mid markasta horumar u dhow. Akhrisku wuxuu kobciyaa luqadda iyo qorista sida qeybaha hore aan kusoo sheegnay. Qofka akhriya buugaag, qormooyin iyo maqaalo kala duwan wuxuu si dabiici ah u bartaa ereyo cusub. Qaab qoris wanaagsan iyo hab fikir fiican ayuu yeeshaa. Waxaa la yiraahdaa akhrisku waa sida qof kasta oo qora ah uu u tababarto ama u tababari karo maskaxdiisa. Qofka akhriya wuxuu leeyahay hadal hufan, qoraal nadiif ah, fikrado isku xidhan. Akhrisku wuxuu dhisaa shakhsiyadda. Buug kasta waa sida saaxiib cusub. Waxaad ka helaysaa casharo ku saabsan nolosha, guusha, sawirka iyo sida loo wajaho dhibaatooyinka. Qofka akhriska jecel wuxuu leeyahay adkaysi, go'aan adag iyo faham nololeed oo ka qoto dheer kan dadka kale. Akhrisku wuxuu kaa ilaalinayaa marin habaab. Adduunka maanta waxaa buuxa warar been abuur ah, xog darro iyo fikrado khaldan. Qofka akhriya wuxuu leeyahay awood uu ku kala sooco runta iyo beenta maadaama uu leeyahay aqoonta ku filan, aragti dhammaystiran, faham ku saleysan cilmi. Akhrisku wuxuu kordhiyaa fursadaha shaqo iyo horumarka. Dadka akhriska badan waxay leeyihiin xirfado shaqo oo sareysa sida fikir hal abuur leh, xalinta dhibaatooyinka, qoraal iyo warbixinta rasmiga oo tayadoodu sareyso, awood hogaamineed. Sidaa daraaddeed akhrisku wuxuu noqdaa fure aad ku furto albaab badan oo noloshaada, sida wax loogu akhriyo si loo xasuusto ama akhris xasuus reeb ah. Wax akhriska oo fiican kaliya ma ahan inaad bogag badan furfurto, ee waa sida aad u akhrido iyo sida aad maskaxdaada ugu qorto wixii aad baratay. Waxaan eegaynaa xeelado kaa caawinaya in akhriskaagu noqdo mid lagu xasuusto. Ujeedo yeelo ka hor intaadan akhrin. Isweydii, maxaan doonayaa inaan ka barto akhriskan? Marka aad ujeedo leedahay, maskaxdu si fiican bay u kaydisaa xogta maadaama ay ogtahay waxa ay raadinayso. Soo koob waxa aad akhrisay. Marka aad akhriska dhammaysato, qor qodobada muhiimka. Samee liis kooban, ku soo celceli naftaada waxa aad fahantay. Akhri adigoo ka fikiraya, ha ku dhicin akhriska degdega. Mararka qaar dadku waxay ku ordaan bogagga iyagoo aan joojin. Waxa muhiim ah inaad joojiso marka wax muhiim ah kuu muuqdaan, inaad isweydiiso maxay tani ii sheegaysaa, inaad isku daydo tiigsiga fikradda buugga. Akhri marar badan. Waxaa loo baahan yahay xogta maskaxdu si fiican bay u kaydisaa marka aad marar kala duwan u fiirsato. Maalin kasta 15 ilaa 20 daqiiqo haddii aad akhriso, waxaad ka faa'iidaysanaysaa in maskaxdaadu ay qabsato xogtaas. Wax kasta oo aad akhrido, isku day inaad uga faa'iidaysato noloshaada dhabta. Haddii aad buug ka akhrinayso guusha, isku day inaad casharkaasi ka hirgeliso nolol maalmeedkaasi. Marka aad ku xidhiidhiso nolol dhab ah, maskaxdaadu waxaanay arrintaasi u aragtaa mid muhiim ah, sidaasina ayayna kugu xasuusinaysaa. U akhri sida in qof kale aad u sharxi lahayd. Marka aad isku daydo inaad sharaxdo waxa aad akhrisay, waad xusuusanaysaa. Maskaxdaadu waxay geli kartaa heegan si ay u kala saarto, u abaabusho, uguna kaydiso xogta. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan. Tan iyo muuqaalkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo.